علي بن أبي طالب وأي sheeganayaan qolyaha shiicadu inay waxa weeye ay u nusraynayaan ay taabacsan yihiin cidii madaxda ka ahayd ama number 1 ka ahayd ama foolaada ka ahayd fitnadii Uthman radiyallahu anha lagu kiciyay oo markii dambe keensatay in noloshiisii uu waayo oo dhigiisa la banaysto bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد إن شاء الله تعالى ما أنت وأي تاريخ ذا هجري وكبيران تهي شان يلا تنكي بشي رمضان كن أفر بقل أفرتني تدبه هجرية ووافق صن تاريخ ذا الميلاد ديقا 14 bishii saddexaad 2026 waxaan insha Allah taala halkan aan rabaa inaan ku soo gudbiyo ama aan xoogaa kooban ka binixiyo ama aan ka tilmaamo mowduuc ku saabsan madhabka tashayuca ama shiicada waxaan insha Allah taala uga hadli doonaa mowduucaasi ama shiicada iyo nash'adoodii iyo xilligay soo bilowdeen iyo taariikhdooda iyo aqaaidooda iyo waxa ay yihiin iyo waxa ahlu sunnaha ku kala duwan yihiin iyo si fiican waa mowduuc si fiican looga hadlay kutub fara badan laga qoray kutubta ka hadla al-firq wal adyan si fiican looga hadlay buxuuth fara badan iyo baxs fara badan laga sameeyay culimaduna ay si fiican uga hadleen oo waxa weeye tasjiilaad ay ka sameeyeen fara badan iyo muhaadaraad iyo nadwaad waa mowduuc aan hadda ka hadalkiisu qaliil ahayn oo yareyn ama aan cusbayn laakiin insha Allah taala waxa ay yara muuqatay inaan maadaama xilliga hadda la joogo bulshada muslimka gaar ahaan dadka Soomaalida ah oo badanaa taariikhda iyo firaqda iyo shariicada aan aqoonta fiican u lahayn maadaama ay ku yara wareersan yihiin wax kamida shiico maxay inaan si kooban u tilmaamo insha Allah taala bal shiicada iyo taariikhdeeda iyo waxa ay yihiin waxaan uga hadli doonaa biidnillaahi tabaaraka wa taala ka bilaabi doonaa bal shiico horta maxay yihiin taariifkooda xagga luqada carabeed iyo xagga istilaaxaba culimadu waxay ku taariifiyeen taariikhda iyo xilliga ay bilowdeen iyo waxa weeye maraaxishii ay soo mareen ta'siiskooda iyo mataqaanaa yaa asaasay ama madhabkan ama firqadan waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah taala aan taaban doonaa iyadana bilaad al-faris ama furus sida ay ugu faafeen iyo sababaha keenay inay ku faafaan oo mataqaanaa meesha ugu badan oo madhabkani uu saldhigtay inay noqoto waxaan insha Allah taala iyadana ka hadli doonaa oo taaban doonaa bal inta qaybood ay u qaybsamaan iyo inta firqa ay u qaybsamaan ama kuwa ugu muhiimsan baan insha Allah taala wax ka taaban doonaa iyo aqaaida ay aaminsan yihiin waxaan insha Allah markaa iyadana taaban doonaa bal ahlu sunnaha iyo waxa ay kaga duwan yihiin si kooban oo muujasa baan insha Allah taala uga hadli doonaa nabiga عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وهو كله رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة نبي عليه صلى الله عليه وسلم يهودي وها يقيب سنتي كوب يتضباطن فرقة نصارنا وها يقيب سمين لبي يتضباطن فرقة ومضيدنا وها يقيب سمين تابولي النبي عليه الصلاة والسلام صدح يتضباطن فرقة لما أنتوا نارتي قليان marka laga reebo nabiga kaleey salaatu wasalaam leeyahay hal mid rasuulka waxa lagu yiri sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay oo man hiya ya rasuul allah taasi waate
rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam isagoo ka jawaabaya man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi wa idda kusugan waxaan anigu dushiisa ahay oo kale oo ku suganahay iyo saxaabadaydu riwaayadka qayb waxay tilmaamayaan inuu nabiga alayhi salaatu wasalaam hiya al-jamaa'a oo marka Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo Ibn Majah waa warinaya oo iyo Haakim waliba Imaam Haakim rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay waa saxiixun ala shart al-Muslim hadiisku Ibn Taymiyyah kale wuxuu leeyahay waa hadiisun saxiixun mashhuurun waa hadiis saxiixa oo mashhuura محمد ناصر الدين الألباني وحكو صحيحي سلسلة الصحيحة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويسقون الروايات هي الجماعة وقصوا عرورتي مركا حديث صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام تلمام أيو ومدني إني تضباطني يصدح فرقة يقيب سنص هل مدنا أي كصحنتهاي تانا وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إليهين عند النبي محمد الصحابة دي سوحي كسبنايان كسبر والفرقة الناجية أما الضائفة المنصورة بتاتبع أهل السنة والجماعة وإن شاء الله تعالى إنه حق الدبي كتابن دون بالعقائد ده إيو متقانا بالوحي كقدويه كقدويه قليان شيعة أما فرقة المنصن شيعة فرقة كمدويه لكن سكر marka loo dhigo ma aha hal firqo iyada waxay u sii qaybsataa firqooyin fara badan laakiin firqada waaweyn oo firqal kubra la yiraahdo way ka mid tahay khawaarijta iyo mu'tasilada iyo mataqaana kuwaas iyaduna hadda way sii qaybsami doontaa insha Allah ta'ala xagga dambeeynu biidnilaahi tabaaraka wa ta'ala kaga hadli doonaa shiicadu maxay yihiin hadaba ereyga shiica muxuu noqonayaa xagga luqadda علماء اللغة حيلي الشيعة مركز الصورية فالشيعة والتشيع والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة حيكون ريجس مركز اللغة العربية اللغة وقواميس اللغة السلفيرية إرجع الشيعة والتشيع والمشايعة كادوا تتبرده حول معنى المتابعة حيكون ريجس إرجع المتابعة وأحرع السنان هي مناصرة oo heelin iyo mataqaana taageerida iyo wal muwaafaqatu bil ra'y in ra'y cid lagu waafaqo oo lagu raaco bay ku dul wareegaysaa marka xagga luqadda inahaas baa lagu soo koobi karaa luqadda Carabeed ama xagga istilaaxa iyo culimadu waxay u yaqaaniin shiico qofka mawduucan baaraya ama mawduuca shiicada baaraya waxa arkaya taariif kala duwan ويجي لفتر كودو شيعادو كتبتودا ويكون تعريفيا شيعاده marka taariifaad kala duwan baa jira marka qofku inuu iska hubiyo taariifka markaas munaasabka ah oo insha Allah ta'ala soo qaadanay aynu ku taariifin doonaa waa taariifka uu ku taariifiyay Imam Shahristani fi kitaabihi Al-Milal wal-Nihl marka culimo badan baa taariifisay Abdullah al-Baghdadi oo kale kitaabkiisa farqu bayna al-firq uu ku taariifiyay علماء بدنا رسولنا وتعريف الصي أو تعريف الصفة عن وهذا شيء وشيعة لكن تعريف نقول شامل صن ولا رنكروا عقائد دي أما مجمل عقائد هي بها من سنايين الشيعة بوصفة عن سوكوبيا إلا وحياوير يرمويان وصفة عن كوبيا وكل تعريفنا يا وتعريف كإمام الشهرستاني كتاب كيسال الملل والنحل وحليه هاي إمامكم الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده عليه الشيعة وعدة تاغيرتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيجارة وتاجرتي ويري ما كو قولي إمامة ينصب حق لها بإمامتي هي خلافة إن يهيد نص عد يوصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودردارمي يوح مسلمين تو أي كشورين يعني اختيار
ay ka furan yahay uusan ahayn marka waxay leeyihiin imma jaliyan wa imma khafiyan ama naskaas iyo wasiyadaasi ha ahaato si jaliya oo muuqata ama si qarsoon oo waxa weeye aan muuqan ha ahaato واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وقال آمنتي إمامته خلافته إنان الضعفين وكبحين أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدريدس حتى يكبحنا وحي كله وإن خرجت حتى يكبح طبعا فبالظلم يكون من غيره وحي كبح ضي وكبح كرتا الظلم غيركي والسميي أو بتقية من عنده أما قرص الشر إمامك قرصدي علي بن أبي طالب نشرح دونا واحد تقية اللي يراهدو بيليه وعكلو يراهدين إمام الشهرستاني سو تعريف كاكو تعريفين ليست الإمامة قضية مصلحية تناض باختيار العامة وينتصب الإمام معها بكليه الإمامة قضية مصلحة وكحرا اختيار ذاتك قود أي دوران أيانا إمامك يقوى أي تنصيبين أيانا أي دوران أيانا بل اسكبر دافع وقضية أصولية بإليه بل هي قضية أصولية وقضية أصولية ومن أركان الدين أركان الدين تكملة لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفالها وإهمالها ولا تفويضها إلى العامة وإرسالها وما بنانا أما رسوشو إن إغفاليان أما إهماليان أو ضيعان oo ay u daayaan dadka caamada iyo dadka guud si guud bulshada inay u daayaan oo waxa weeye iyagu marka ay go'aan ka gaaraan cid ay doortaan arrin saas oo nooca ama ah waa rukn min arkaan diin bay ku leeyihiin saas ay qabaan marka wuxuu leeyahay imaam shahrastani rahimahullahu ta'ala wa yajma'uhum alqawl biwujub at-ta'yin tansib waxa marka jamciyah shiicada noocyada kala duwan oo waxa jamciya تعيينك iyo tansiiska ama naska iyo in la cayimay oo ay khilaafadu cali ay u sii cayiman tahay in waxa weeye qadiyadaas bay isku raacsan yihiin ay waajib tahay waxay kala isku raacsan yihiin buu kuleeyahay thubuut ismati anbiyadu iyo walaayimma aymada iyo amiyadu inay isma leeyihiin oo macsuumiin ay yihiin oo aymadooda oo arki doona way gaari doonaa wax 13 ayma ay aaminsan yihiin oo macsuumiina waliba wax wujuuban bay ku leeyihiin si waajiba bay waxay uga yihiin kuwa macsuumiinka oo aan lahayn anil kabaa'ir was saqaa'ir aymadii bay waxay gaarsiiyeen halkaas oo saqaa'irtii kabaa'irtii waxay ka yihiin bahalki waxay kaloo wal qawl bit tawalli wat tabarri iyo qawlka inay ku hadleen waxa weeye tawalliga iyo jacaylka iyo ka wali dhigashada iyo imaamka in maaragtay wali laga dhigto la weyneeyo iyo cid kasto isaga ka soo horjeeday laga bari noqdo laga tabarruo arintaas bayaguna isku raacsan yihiin qawlan iyo ficlan iyo aqdan taqaana bay isku raacsan yihiin marka xuleeyahay waxa zaydiyada ku khilaafay iyagu ku khilaafay iyaga insha Allah ta'ala zaydiyada gaar baynu arki doonaa marka taariifkaas guud waxa uu tilmaamayaa maxay yihiin shiica marka إمام شهرستاني ساسو ku taariifinaya waa qolada afkaarta taariifka aynu ku soo sheegnay aaminsan shiicadu goormay bilowdeen ama taariikhda xilliba madhabkan tashayuc uu soo ظaahiray ama uu soo muuqday nabiga kaleey salaatu wasalaam markii uu dhintay oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam loo afsaday oo geeriyooday saxaabadu waxay beecal la galeen oo la mubaayacoodeen أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة ينو خليفة مسلمين تنقضوا إجماعا بكل موايعود وحنا معلومة عد خلافة أرنتها كسور تيستي مجرته علي بن أبي طالب وأي شيئا أيان قليها الشيعة اللي وحوي أيون نصرين أيان يتابع سيه يتكلتون مدين سلاس وكله علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجنا سداس وكله أي صحابة وجو إجماعين لا دورتي خلافة عمر رضي الله عنه طبعا عثمان رضي الله عنه صدح عنهما صدح ذولا سداس بالو دورتي وخلافة أتقانا أيكو مسلمين تو أيجو إجماعين وأيكو دورتي مركي أنت كبعدي
عهد عثمان آخر كيسي رضي الله عنه با صحابي الجليل كعلي وأمير المؤمنين تا صدحاتها عثمان آخر كيسي بوحى بلابطي راساتكي أو علاماتكي في التنتي مركز بكين الدونتين علي عثمان بن عفان رضي الله عنهما ومتقعنا واستشهاده للدلو وخوارجته يدشوه حلقاس فتنة عثمان أي دعضي با markii dadkii cali taageerayay xilliyadaas ba waxa lagu idlaaqi jiray oo cali ibn abi talib dadkii taageerayay ba ereyga lagu idlaaqi jiray shiica oo dagaalkii markii dambe dhex maray markii Uthman ibn Affan ibn radiyallahu anhu oo jabal ama harbul jabal oo dhex maray saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku istishhaadeen Zubayr iyo Talha iyo عائشة رضي الله عنها ومتقنا معاوية بن أبي سفيان أيضا عن حرب فتنة ذاها دجال كاستدك على التاجري وعلى الدين عيسى السعودي وحلقوا مجاعة اسمه الشيعة مجاعس اللي هذا اسمه مركا آخر كي حلقي عثمان رضي الله عنه إلى لبشر عليه حلقي هذا أبو صاد ظاهر مجاعة إن مجاعة على مقله ده بدنا واحد يسبب ده شيء فرقة عقيدوي خاصة له وإن شاء الله تعالى نكور بدونه أنت كبعدي ويصوت تدورتي ومتقنا ويصوم وقتي وتدور بيسبيسي نمنكي شيعها وحي هايين حلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين تونولا صدح قيبوت بيهايين بالي هو حلينا يا توصوا عن بحين في عهد علي صدح قيبوت بيهايين قالوا حلورنشري المفضلة oo waxa weeye waxay aaminsanaayeen oo ay arkayeen Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inuu ka fadli badan yahay Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman ba inuu ka fadli badan yahay oo bay aaminsanaayeen qolada asaasi aaminsanaayeen qolada labaad waxa la oran jiray asbaba oo iyaguna waxay aaminsanaayeen baa la yiraahdaa waxay ku xadgudbayeen mubaalaqo iyo xadgudub ay ku sameeyeen tafdiilka Ali ay ka fadilayaan Abu Bakr iyo Umar ay ka fadilayaan ilaa ay gaareen inay caayaan Abu Bakr iyo Umar radiyallahu labadii saxaabi waa wila sheekheynka inay caayaan qolada saddexaad waxa la oran jiray al-ghulaah ama zanadiqa qoladaasi oo iyaguna waxay gaareen heer ay Ali dhahaan waa ilaah ama ilaah ay ka dhigtaan way dhahaan Ali waa ilaah wal iyad billah oo nimankaasi waxay aaminsanaan ilaah aw halla fihi juz'u min ilaah ama waxay lahaayeen waxa dhex degay oo ku dhex jiray gudihiisa qayb ilaahay kamida sida nasaaradu ay aaminsanaayeen nabiyullaahi Ciisa alayhi salaam inuu yahay ilaah waxa kale oo nimanka la oran jiray marka magacooda zanadiqa sababta loogu magacaabay zanadiqana waxay ahayd waxay muujisanayeen islaamka waxayna qarsanayeen kufriga iyo gaalnimada Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qolyahaas qolada mufaddilada la yiraahdo Ali Abu Bakr iyo Umar ka fadilayay qolaba saddexda qolaba sidoo la dhaqmay Ali radiyallahu anhu qolada koobaad mufaddilada la yiraahdo oo iyagu aaminsanaa ama sheegayay Ali inuu ka fadli badan yahay Abu Bakr iyo Umar kuwaas uu ku inkiray wuxuu cadeeyay marar badan oo umada uu cadeeyay Ali ibn Abi Talib in nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam gadaashi umada uu khayr badan yahay Abu Bakr dabadeedna Umar arintaasina waa arin sugan sida Sahih al-Bukhari ku sugan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu way ka sugnaatay arintaas waxa ka ansaxay inuu yiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qolada mufaddilada isagoo radinaya araadoodii la iima keeno nin iga fadilaya Ali ama la ii keeni maayo iga fadilaya Abu Bakr iyo Umar illa waan jildinaya jeedal baan ka jaraya ama jildil muftari ama qof been abuurtaa jildigiisa kale baan ka jaraya oo 80 jeedal baan ka jaraya buurinti qolada sabaabada la yiraahdo ama sabaaba oo Ali Umar iyo Abu Bakr caayay radiyallahu anhum iyaga wuxuu ku xukumay al-qatl oo waxa soo gaadhay
qolyaha qayb ka mid ah warkooda baa soo gaaray dabadeedna wuxuu dalbay in la dilo laakiin way ka carareen laakiin xukunka uu ku xukumay cahdigiisii xilligiisii qolada sabaabada la yiraahdo ama sabaaba kuwii caayay iyagana wuxuu ku xukumay in la jildiyo qoladaas waxa weeye la dilo baa leeyahay qolada saddexaad oo qulaada la yiraahdo ama zanaadiqada xukunkiisa ama uu ku xukumay wuxuu ahaa alxarqu binnaar in la gubo iyaga arrintaana wuu sameeyey cali ibn abi talib radiyallahu anhu qoladii aaminsanaa cali inuu ilaah yahay ama fiihi juzu min ilaah wuxuu ku xukumay in la laayo in waxa weeye dab lagu gubo oo saxaabiga weynaa cabdullaahi ibn cabbaas radiyallahu anhu ayaa arrintaa ku ictiraaday oo kaga hor yimi oo cali oo yiri at-ta'diibu bin-naar ilaahi subhanahu wa ta'ala baa iskale oo wuxuu cadeeyay inuu seef ku laayo iyo waxa la midka marka xilligii cali ibn abi talib radiyallahu anhu amiirkii muuminiinta xilligaas waxay ahaayeen shiicadu saddexda qaybood baa soo daahiray qolada mufadilada cali iyo abubakar iyo umar ka fadilasa iyo qolada sabaabada oo caayasa laba sheekheynka iyo qolada qulaada oo cali waa ilaah buu yahay leh arrintan taasiiska yaa lahaa oo qodob ku xigay inuu gudbi doonaayo oo nimankan madhabkan tashiica inuu aasaasno ama tashayuca afwan inuu aasaasno yaa waxa weeye mu'assisku uu ahaa culimadu waxay tilmaamayaan gaar culimada ahlu sunnuhu iyagu waxay aaminsan yihiin shiicadu in madhab awal islaamka la jaan qaaday uu san ahayn madhab dib laga aasaasay ama xilli dambe yimi uu san ahayn waxa sala uu ahaa laakiin sida saxda sida الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي كتاب كيسا أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية رسالة داس أو هنتي كجاها ضي فرق ضي أديانتي وسفي عنه وفه فهي دكتور كوسده وكتل الماوية وكسر ضيه وحاول الماوية وحى أساسي نيكي لورنج عبد الله بن صبع أو مثلا كالتشيع غالبا وليبا نيكا أساسي وين عبد الله بن صبع على رجل يهودي وما كرهها ني يهودية وما تقارنا خير درن وشر بدن بوها إسلام نمدو موجست إسلام نمدو وحو موجستنا سو إسلام كا فسهاديو ودمية بو موجست إسلام نمدو نب كما هين وحونا هذا ليرادا عندي مدحدة كاهين أما لمبر 1 كاهين أما فولاد كاهين فتنة عثمان رضي الله عنها lagu kiciyay oo markii dambe keensatay in noloshiisii uu waayo oo dhigiisa la banaysto sidaas oo kale isaga iyo atbaacdiisu waxay ahaayeen dagaalkii Yawmul Jabal oo saxaabada dhex maray dadkii ugu badnaayo hurinayay oo dadkii maleegay uu kamid ahaa ninkaas markii sulxiga la isku ittifaaqay ee lagu ittifaaqay kadib marka ninkaas baa ahaa mu'assis ama ninkii fakarkan tashayuca asaasay Abdullah ibn Saba ninkaasi waxa waalidii wuxuu ahaa wuxuu muujistay oo la soo baxay quluw lagu sameeyo Ali ibn Abi Talib waxa weeye buu muujistay ilaa uu gaarsiiyay oo asfaacdiisii dadkii ku xidhnaa uu ka dhaadhiciyay inuu yahay ilaah arrimaana waxa ku tusaya Abdullah ibn Saba وحاول تلمامي أن القرآن جزء من 9 أجزاء قرآنك وجزء من 9 أجزاء وأنه لم يجمعه كله إلا علي قرآنك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحو تلمامي وعقيدة وحو فافنية إنه تشيره وحقارة وعلي بن أبي طالب قري وأجيه إلهي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم معنا بمعنى اختص عليا وآل بيته بالعلم الباطن إلهي سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب يا آل بيت كيسا والنبي عليه الصلاة والسلام وكجاري لي علم باطن كما علم قصون عندك كلوين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرنتاس ونفيه ونكسر هرتيستي ونكهر لي وحو عديه بالإرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كسر تيستو النفي إنه النبي خصه بشيء من العلم النبي حقار وخصصي وعندك كلوين وشاري ولو حال إلى ذا أنت أعلن على المنبر كوكا
بكشة وعيري معني يسوى أهل الدنيا سيدا إمام أحمد البخاري في صحيحه وكورنا عبد الله بن الصبا نكاس يهودي قال خير قدرني حوي نكي استعدادات برامج waxyaabaha noocaas oo meesha ugu weyn cali waa ilaah ninka gaarsiiyay buu ahaa qali ibn abi dalib soo ka jawaabay inaan wax gaar ogeyn ali ibn abi dalib wuxuu leeyahay wallahi ma afda yani rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ilayya bi shay'in katabahu ahad min an-nas ilaahi subhanahu wa ta'ala ima gaariyeen aniga ama ilama wadaagin shay uu ka qariyay dadka qayb kamida ولقد سمعته يقول مركا على لي عبد الله بن الصبا ماشي هو فديا waxaan ka maqlay nabiga kaleey salaatu wasalaam buu yiri Ali ibn Abi Talib in bayna yaday saacati 30 kadhaban saacada waxa ka soo horeeya waxa weeye 30 kadhaban soddon kadhab wa innaka la ahadu adiguna waxa tahay mid kamid ah oo soddonka kadhab mid kamid ah tahay buu kulaha waxyaabaha uu muujistay waxa kamid ah ninka Abdullah ibn Saba وعين تلماننا إنه مذهب كان أساسي بقوله هي تعلي سنة المامن علين إلهي وأنتاس كفر جاه وين وقال لماذا نكي أتباع دي سكون حفافية وقد يدرس وحالي هذا ضدك أتباع دي سها وكفر فيها أنت وشاغي أو حيث سوه تاجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباب كيس طبعا نو حيرادين أنت هو ما دقا قالوا وحي من هو أيوه علي بن أبي طالب قالوا وحي أنت الله أظن إلهي سبحانه وتعالى بات إلهي بات طبعا النبي علي رضي الله عنه صدح مع الموت بوكالي انت وحي كده بينا حرقهم بالنار وقوي ما الإرادة دبوا كقوي سبقوا كهر تجي وحي لي بعدين ومنكرك عبد الله بن الصبا وحياه وموجستي وحكم ده هيد وأساسك وها ومؤسسك كها إلا بدي الشيخ العايو صب الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلا عاد ولما وحوا الشيخي علي إنه علي قرصنيه الله بدي الشيخ عداوته قرصنيه أنت اسمك علي سوق قاعدي ولا يرى عبد الله بن صلى وحو يري وركاس شيخي عن علي إن عمر يا أبو بكر عدو قبتي عداوة علي بن أبي طالب وحيري مالي ولهذا الخبيث الأسود هذا نوع كلامه معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسنى أو الجميل الإلهي بان كما قال إن نقصد اللي بدو ذا لبدا الشيخ عمر يا أبو بكر وناقمو يعني وأبو غحرق علي رضي الله عنه هذا الكه دبدنا وقد يدك كانتي مركو انت يري وحيابها نوع عاص وموجستي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير كمؤمنين وأمره إن مجالات اللي جاب مسافرية لما سافرية نكاس بالله مصطفى وأمر بالنفي المدائن مجالات اللي يراد المدائن وبرجع العراق طالة اللي هو مسافرية وأمري وحيري وهذا الذي يروح كم ذا هيد لا يساكنني في بلدة أبدا هل بلده maartay ila deganaan maayo yani meel wada joogi meeyno dabadeedna memberku koray oo dadkii isugu yeedhay Ali ibn Abi Talib ila dadkii waxa la yiraahdaa ay soo urureen ay isu yimaadeen dabadeedna fathana dabadeedna wuxuu amaanay oo amaanu kala dul dhacay fathna ala shaykhayn fanaan cadiiman amaan buu kala dul dhacay khudbadiisina wuxuu ku soo khatay baa la yiraahdaa بالتهديد الرعية تذكي نكها الرعية وعبد الله بن الصبا إنه علي وهجبي سبوا له وحوي هدي السوق قاردو أحد أما قف يقفل دي لي اللي بدو له وحان كتشر يا سديتا تشادو وانشل دينية مركا علي بن أبي طالب وحا ليرادا وحو دونيي إنه الدلاء عبد الله بن الصبا لكن وحو كبقي فتنو يين فتنو أي دعضو وما تقارنا دباتو أي دعضو لأن محايلي أتباع نصبع عبد الله بن الصبا كوا وياهاين علي هريري سكوسفن وميشي تشوغو فربدن كاين فتنة دعضو دبادنا وحو كافتومي وإن مارتي لما سافريو ومدائني هالكاس لو فوقيو إن شاء الله تعالى قيبت كوباد
inahaas baynu ku joojinaynaa